markaan iskaga soo baxnay dhakhtarkii waxaan nimaadnay guriga markaan nimaadnay inanta hooyada waxaa tiri aniga inanta yarada ka eegsad maanahan orod reerkiini la aad baxnaaya ani ina yar la wareegaysa ima imanaysa aad reerkiini inantii aad la joogtay hooyadeed baa tiri iga baxa haddana subxaan allah dadna waan iskaga soo baxnay soo baxayso maadaama waxaasoo dhibaatay markaa ku haystaan sideebaad waxaasoo dhibaataa u xambaartay eed ugu adkaysatay adigoo inantaa yara maxaad samayn jirtay ma ilaahay baa isku xidhi jirtay ma cibaadadaada badnayd waayo horta mar walba dhibaato ila soo gudboonaato waan tukan jiray 2 ragcadood intaan tukado baan ilaahay baryi jiray dadku halkii 2 habeenimo ka hordanaan waxa odhan jiray ilaahu adoontaadii baan ahay dhibaataan ku jiray ilaahu iga dhaxsaar mar walba wada iga soo xidhatana wada ii furmi jirtay mar walba ay wada iga soo xidhataan arkayna wada iga soo xidhatay wada ii furmi jirtay allahu akbar lii 3 kun baad ku joogtaan inantaas inta sheekaynaysan qofkii wax u soo diri kara ha u soo diro qof kasta wax u soo dirana inta commentiina joogta u duceeya in ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaas uu inantaas ku caawinayo caawa inantaas insha Allah marka sheekada dhamaysan waa u kici doonaa intii qof inantaa yar inagu hor ooyisay inagoo 3 kun oo qof oo Soomaaliya ku joogna inta baa waxa dhacday hooyadii maalin walba way soo garaacdaa maalin bil baan ku qaataa $8 baan qaataa wax laaga bil baan ku qaadan jiray waqtiga maalin walba 3 kun lacag soo dir caana la siinayaa ciyaalkii badar loo siinayaa qalimaantii baa ka go'ay iskisadii baa ka go'day aanu hargeyso hooy kama haystii gabar baan la joogaa marka la guursaday oo soo guursaday baan gurigeeda seexan jiray waqtigaas markaan ka shaqo tagi jiray habeenkina fiidkan iman jiray waan dhici jiray dad ma aqoon asxaab ma aqoon walaal ma aqoon cidna ma aqoon naftayda kaliya yaqaana saas anigoo muddada ku jira hooyaday maalin walba qaylo maalin walba buuq maalin walba qaylo maalin walba buuq maalin walba qaylo markaas waxa ku dhahay hooyo maanu ma karayo hooyo waxa soo ma bixin karayo lacag markaas maalinta ku dhahay hooyo lacag ma bixin karayo way cayday kaali soo qaaday ilmahaaga kaali iga kaxayso way idibtay way ikadeeday bukaan bay ka bixilaaday ba markaas lacag ama haba raadiyayo bisha dhanba $8 ama haba ku dhameeya waanu diraa muddo badan marka saas ku wada lacag u direeyba baa waxa la soo sheegay gabadheeda in xanuunsanayso markaas waxa ku dhahay halkan ka carr waxaan tagay inantayda insha Allah akoonkayga waa soo dhigi doonaa after before waxaan u tagay ilmaha iyo aan xitaa waan ka sheekeynayadii tahay waxa ku dhacay way qayrantay timihii baa laga xeeray yani waan u eekaatay weligii ma u arag ilmo u eekaaday maadaama aanan hooyadii markii koowaad waan ka xishooday waxaan ku dhahoy maxaan maasaan u galay sharaab hataa rabtaad macaan qaadadan kuu tahay bartaa kuu saxda anina waxaan qiimeysanay dugsiga yar ee hooyaday ilmaha igu haynaysay iyo seexanayso inta dhaxal la wareegaalaysan la bilbili laayay habeen bagdaar la seexalaayay waxaan iska go'aansaday in halka ii joogto aan iskaga imaado bil walba lacagta sidii baan ugu diri jiray ciidkii baa imaaday 7 qof soo ciidsiiba igu tiray marka inantaada yareed markaad soo aragtay say u ekaatay haddana maad soo qaadanayso ka soo noqotay marka la arkay waan ooyay dadkii dhex joogan xitaa weyntii xajisan kari waayo oo 2 saac badan ooyay lagu laam maxaad ooyaysaa waad kibraysaa jaahilnimo waad kibraysaa waxaan ooyin lagaama dhaw anigu ilmahan nolosha la soo maraan ogahay moogtay dhibaato waan u geliyay dalad baa u geliyay kabaan u geliyay waxa soo qaatay sidaan ku soo qaatay sheekh ma xitaa bar ma fadhiin daqiiqada yar sheekh ma dhex taagnayn waan marro dilaa waan iska soo baxay marka walaalkii ilo adigu hooyaa tahay waxa weeye adigana nin baa kula dhalay kii markaa kaa dhalay ama odaygaagii ku qabay weli intaa aad dhibaatoonayso aad wareegayso marna xitaa kulama soo hadlin inantiisa yar waxba kuma soo darsan miya horta dhibaatadeeda waan qarsan jiraa nuur baa wanaagsan cidna dhibaatadeeda ma sheegi jirin ka ila socdo misagoo ogaado xaaladan ku suganahay mise qof ay dan iga gasho oo ay dan iga gasho danta iga gasho darteed aan dhibaatadeeda ugu sheegto qofka hadii dan iga gelin dhibaatadeeda ma sheegi jirin cidnaba dhibaatadeeda lama soo istaagi jirin waa qarsan jiray inta haddaan ooyeelinta intaan meel la tagaa soo dhamaysto iska soo masaxan ka qosol dhex iman jiray Allah waa fariid maasha Allah amrada ka dhigay intan yari horta waa fariid maasha Allah anigu intaan ilaa hadda ka arkayo gabadh ka karti badan ma arkin inta badan waxa weeye dadka xitaa markaan wareysanay gabadh sidan u dhiiran oo sidan u karti badan
oo sidan u geesisan ilaahay subxaana wa tacaala isha bilaadanka ka hayo geesiyad baa tahay fariidna waa tahay maasha allah ku soco maasantay kadibna aan hooyada marka kasoo kaxaysay magaalada keenay markaa keenay xumad saayidaa haysay cuntadii horta way cunayda kow xumadii baa kusii laba jibaarantay ani lacag ma haysto wax lacagoon gacanta ku haystay miyahan waxay noolahayeen nool baa ka dhigtay yacni way ma tagtay hor iyo dambay noqotay way kasii dartay gabadhan hadda la jooga waxba igama haystayso laakiin gacantayn waxba ku haynin markaas waan u adkeysa waayey markaasaana go-a waxaan ku gaadhay markaan u adkeysa waayey inaan aabaheed wacayo reerkooda waxaan ku dhahay ilmihiina soo caawiya waa la hadlay 10 jeer baan islaanta waayida la hadlay isaga wii soo wacay wuxuu igu jawaabay Soomaali waxa markaa ku dhahay walaal ilmihii kaalay la qaad dhakhtar idhige diyaariyadii mariyada xagaad geynaysaa markaa ku dhahay wuxuu igu jawaabay hooyada baan u geynay aniga waxa ku dhahay hooyada uma geynay sida hooyada horda waxay dhashay u geey tan aniga la dawarsanayay iska dhigay Dubai daba meel maray maana rag ilmihiisa muunu soo sheegan muunu soo raadsan anina markaan xamili waayay wax lacagana aan hay leefan soo furtay say dadku sheegayaan wax kasta nolosheeda kamidana waa ka dhex sheegay anigoo waliba aad u ooyayo xitaa hadal oonteyda aan hadalkayga la garanaynin darteed wax walba laakiin waa ka dhex sheegay caawan isxakameeyay man oo laakiin habeenka aad baan u ooyay sababtoo ilmahayga waxaan arkay indhaha xagga laga rogay cadaynayso oo aan hadlaynin oo dhawaaqaynin faanta dadku horta waxa rabaa inaan ku sheego reelo mid dadku horta badanaa waxay qoranayaan maxaad social media waalidka u keentay maxaad social media dadkaaga u keentay maxaad noloshaada social media u keentay walaalo macaan horta ruba wanaagsan markan maanta lagu leeyahay maxaad u keentay haddaan qariyo iyo haddaan sheegaba anyway labadiba waa isla halkii sababta qarisna anu waa soo jijaabiye sheegataanna waa tan sheegay waan soo jijaabiye labada sheegitaankaaba wax kuwa ummada islaamka ku naxariisanaysa kii jaahilka ee wax kuu sheegaya wax kaa sheegaya isagay u taala anyway laakiin dadka dhammaan way ku naxariisanayaan qofka Soomaaliya ee ku dareemaya uu ku naxariisanaya naga daawanaysa inta TikTok naga daawanaysa labada qaybood live ka nahay waxaan rajeynayaa in caawa inaan taariikh kici doontaan inay yaro Soomaalida oo 3400 oo qof oo Soomaaliyeed oo rag iyo dumarba isugu jira ka hor ooyisa oo inuu caaw u kici weyno inkaarba bay nagu dhacaysaba waana maqlaysaan qofka xitaa u duceeyay ama weydiiyay xaaladda inanteeda yar ay ku farxi jirtay qof markaanu arkin qof u naxariista markaanu arkin qof u damqada markaanu arkin maxay hayto qof laabta geliya u naxariista waa inan yar wad arkaysaan yacni qofka bilaadanka waxa ka oohiyaa waxa weeye wax yar maaha dad baa jira iska ooya maal yacni laakiin qofku markuu niyadda ka ooyayo oo qalbiga ka ooyayo way ka duwan tahay waa marxalad aad u adag waliba gaar ahaan hablaha Soomaaliyeed ee caawa ay daawanayaan inan kasta oo ay daawanaysa ama hooyo ama ilaahay wax siiyay ama ilaahay subxaanahu wa tacaala maxay hayto nolosheeda iyo arsaaqeeda ilaahay u barakeeyay waxaan rajeynaynaa u kici doonaan intaan dhageysanayna sheekadana qofkii inan taayar wax u soo diri kara